shirkadda Somgas waxaa la aasaasay 2011 waxay ahayd shirkaddii ugu horeysay ee keenta dalka gas. runtii xilligaas oo aan ku bilownay haaman yaryar oo cabaysan in lagu keeno dooman. maantana waxaan maraynaa in dalka aan ka dhisnay keed dhammaystiran si aan u gaarno insha Allah tacaala isku filaasho dhammaystiran. sidoo kale waxaa xusid mudan in shirkadda Somgas ay tahay shirkaddii ugu horeysay ee markab keenta dalka Soomaaliya. markabkaas oo wada LPG gas dabiici ah wanaagsan cimiladana wanaagsan. sidoo kale faa'iidooyinka shirkadda Somgas ay soo kordhisay waxaa ka mid ah halka waagii hore dhuxusha dadka markay isticmaalayaan yani laga mari jiray maraaxil aad u dhib badan oo qofka intuu dab soo raadinayo oo dhuxul afuufayo oo gacmaha la galaayo oo gurigii qaac marmarka qaar dad badan oo hurdada ka kicin jireen in wixii oo dhan shirkaddu ay keentay nidaam ka duwan oo wanaagsan si fududna maxaan ku raadaa loo isticmaalo kaasoo ah isticmaalka gaaska LPG. hoteelada waaweyn markii hore ay isticmaali jireen dhuxul aad iyo aad u tiro badan aan keenay agab cusub oo standard ah oo kolley waad arki kartaan hoteelada waaweyn ee magaalada inaan dhignay haaman hal tan ah waan ugu talagalnay safety-gooda iyo nidaamkooda oo aad u wanaagsan yahay. sidaas si la midna waxaan doonaynaa meelaha fogfog ee deegaanada magaalada ka baxsanna inkastoo magaalooyin waaweyn oo magaalooyinka Soomaaliya aan gaaska keenno haddana tuulooyinka ku hareeraysan inaan mustaqbalka aan gaarsiino adeeg inaan noo qorshaysan insha Allah taala. tala ahaan waxaan soo jeedin lahayn maadaama shirkad ahaan aan ka shaqeyno ilaalinta deegaanka iyo ka hortagga xaalufinta dhirta in loo sameeyo shirkadaha gaaska yani canshuur dhimis ballaaran sida dunidaba ay maxaan ku raadaa loo sameeyo. sidoo kalena waxaa kaloo codsan lahayn in يعني isu socodka shirkadaha gaaska bixiya wadooyinka in laga saacido loo fududeeyo si dhaqso ay u gaarsiiyaan dalabaadka iyo baahida markaas taagan. waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqono ka soo qaybgalayaasha bandhigga guuleystayaasha Soomaaliyeed oo sanadkan diiradda lagu saarayo tamarta Soomaaliya.